وعشركان وعشركان نوصل learn how to use window PowerShell IC command and window PowerShell IC command ka ayaan weli ku jirnaa sida loo qori lahaa scriptka adoo isticmaalayo window PowerShell IC command haddaba koodkan caawa aan ka hadlayno waa kood dheer weeyaan marka ugu horeyso koodkan xaggee laga heli karaa ayaan rabaa inaan ku tuso kabacdina cashirkeena dambe aan u dibagalno ama more detail aan siino cashirkan waa cashir gaaban waaye koodkan waa kood computerka haddii aad taabgaraysid computer managementiga aad ka helaysid hadday noqoto hardware ama software uu detail ku siinayo laakiin hadda waxaan rabnaa inaan tusno computer managementiga koodkan in aad ka helaysid oo la yiraahdo WMI oo u taagan ama stand for window management installation wax la yiraahdo installation wax la yiraahdo installationkaas waa kood badan ama kood aan soo qeexi karin hadda waxaan samaynaynaa qaybtan ayaan u dibagelaynaa halkaa ayaan tegayaa markaan tago halkaas waxaan la soo baxaynaa computer managementiga arkaysaan halkaa computer management logo halkaa arkaysid ku qoran tahay ama halkaa arkaysid ku qoran tahay WMI oo u taagan Windows Management Installation waxa la yiraahdo installation marka haddaba cashirkan waa cashir aan idinku tusinayno WMI xagee laga heli karaa oo ah computer management localka toolka inaad ka heli kartid ku dheeraan cashirkan waa cashir gaaban oo aan ugu talagalnay marka ugu horeyso WMI-ga in laga heli karo computer management localka oo computerkaada gudaha waxaan usii gelaynaa cashirkeena dambe sidii aan u qori lahayn scriptka WMI aan ugu qori lahayn window PowerShell IC command ugu qori lahayn haddaba cashirkan ama galaaskan haddaa ku cusub tahay like-ta noo taabo share garee comment ka bixi commentkaada waa inoo muhiim waa inoo cashirkeena dambe